injiilka sida Matayos u qoray cutubka koowaad abtirsiinta Ciise kanu waa kitaabkii abtirsiyada Ciise Masiix ina Daawud ina Ibraahim wuxuu dhalay Isxaaqna wuxuu dhalay Yacquubna wuxuu dhalay Yuhuuda iyo walaalihiis Yuhuudana wuxuu Taamar ka dhalay Fares iyo Seerah Faresna wuxuu dhalay Esroomna wuxuu dhalay Aramna wuxuu dhalay Caminadaabna wuxuu dhalay Naasonna wuxuu dhalay Salmoonna wuxuu Raxaab ka dhalay Boasna wuxuu Ruud ka dhalay Coobeedna wuxuu dhalay Yeesayna wuxuu dhalay boqor Daa'uudna wuxuu naagtii Uuriyah qabi jiray ka dhalay Sulaymaanna wuxuu dhalay Raxabcaamna wuxuu dhalay Abiyahna wuxuu dhalay Aasana wuxuu dhalay Yosafaadna wuxuu dhalay Yoraamna wuxuu dhalay Cusiyahna wuxuu dhalay Yootamna wuxuu dhalay Axaasna wuxuu dhalay Xisqiyahna wuxuu dhalay Manasehna wuxuu dhalay Aamonna wuxuu dhalay Yoosiyahna wuxuu dhalay Yekoniyah iyo walaalihiis waagii Baabiloon loo kaxeeyey goortii Baabiloon loo kaxeeyey dabadeed Yekoniyah wuxuu dhalay Salaatiyeelna wuxuu dhalay Serubaabelna wuxuu dhalay Ebihuudna wuxuu dhalay Eliyaqiimna wuxuu dhalay Aasorna wuxuu dhalay Saadoqna wuxuu dhalay Akhiibna wuxuu dhalay Eliyuudna wuxuu dhalay Elicaasarna wuxuu dhalay Mataanna wuxuu dhalay Yacquubna wuxuu dhalay Yuusuf oo ahaa ninkii Maryam tii Ciise kan Masiix la yidhaahdo ka dhashay haddaba abtirsiyada oo dhan oo Ibraahim ilaa Daa'uud waa 14 oday Daa'uud ilaa waagii Baabiloon loo kaxeeyeyna waa 14 oday waagii Baabiloon loo kaxeeyey ilaa Masiixana waa 14 oday dhalashadii Masiixu sidanay ahayd kolkii hooyadiis Maryam u doonanayd Yuusuf intaanay isu iman waxaa la arkay iyadoo ruuxa quduusa ka uuraysatay ninkeedii Yuusuf wuxuu ahaa nin xaqa oo aan doonayn inuu dadka tuso wuxuuse doonayay inuu si qarsoon u eriyo laakiin intuu waxan ka fiirsanayay ayaa malaa'igtii Rabbigu riyo ugu muuqatay iyadoo leh Yuusuf ina Daawudow ha ka baqin inaad naagtaada Maryam qaadatid waayo waxa ay uuraysatay ayaa ruuxa quduuska ka yimi oo waxay umuli doontaa wiil magaciisana waxaad u bixin doontaa Ciise waayo dadkiisa ayuu dembiyadooda ka badbaadin doonaa waxaasoo dhan waxay u dhaceen in la arko wixii Rabbigu kaga dhex hadlay nebiga isagoo leh gabadh bikrada baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta magaciisana waxaa loo bixin doonaa Imaanuweel kan macnihiisu yahay Ilaah baa inala jooga markaasaa Yuusuf hurdadii ka kacay oo yeelay sidii malaa'igtii Rabbigu ku amartay oo naagtiisii ayuu qaatay uma uuse tegin iyada ilaa ay wiil umushay oo wuxuu magaciisa u baxshay Ciise